wixii aynu muddo badan ka digaynay cid walba wax garanaysana ay ka hadlaysay ayay maanta Soomaaliya dhexda ka taagantaa. Cidda badda doonaysa waa Ethiopia oo landlocked ah ama dal aan bad lahayn. Laakiin cidda baryotamaysa Ethiopia u tagaysa Addis Ababa u safraysa in heshiiskii xaaraanta ay Ankara la fuliyo doonaysa waa dowladda Soomaaliya. Ninkii wax doonayay heshiiska xaaraanta agalay ee asagu bad la'aanta ahaa ayaa haddana asagii la baryaya. Asagii baa loo tagayaa oo leeyahay heshiiskii aan badda kugu siin lahayn please hal la fuliyo ayaa leeyahay asagina wuu diidan yahay. waxaa sidoo kale maantay wax laga weydiinayaa masiirka badda Soomaaliya dalka Masar iyo dalka Eritrea. waxayna labaduba ay leeyihiin badda Red Sea dal aan xuduud la lahayn waxba lagama weydiin karo. Soomaaliya ayay kuleetiga qabanayaan. waxay leeyihiin uma ogolaan kartaan Ethiopianka inay Red Sea ay cag soo geliyaan bal leeyahay. Xasan Sheekh Maxamuud dhexda ka taagan yahay marka Ethiopia heshiiskii ula soo galay ka meermeeraysa oo ciidankii dawladda wali laynaysa oo dalka ku soo xadgudbaysa oo waxay doonto samaynaysa wixii Ankara heshiiska lagu soo galayna diidan in la fuliyo ayaguna ay barayaan oo gooni ah. labo Eritrea oo ayadoo hadda Xasan u yeertay lana xisaabtami doonta waa dal kala dal u yeerayo la xisaabtamaya oo la xisaabtamaya su'aalana ka weydiin doona sababtu Ethiopia uu markaa badda u siinayo. saddex Masar oo diiday oo tiri Ethiopia cag ma soo dhigi karto oo aad muddo hadalkeed inuu markaa hanjabaad yahay oo hadday soo dhigto maxay samayn doontaa lama garanayo. saddexdaasay maanta Soomaaliya dhexda ka taaganta. marka qof aan dal maamuli karinin siyaasad aan aqoonin waxa uu garanayo oo kaliya ay tahay maxaan cunaa maxaan boobaa maxaan qabyaaladeeyaa ay tahay resultiga laga dhaxlay resultiga noocaas oo kala awood million time baan ku celinay anigu sheegay cid walba wax garanaada ay sheegtay inuusan Xasan umad maamuli karinin. Xasan wuxuu ku sifaysan yahay qabyo asaga afkiisa inaga baray qabyo wax walba kor u qaado ayagoo incomplete abu ka tagaya ayagoo qabyo abu ka tagaya. labadii sano iyo barkii uu dalka joogayna hal shay oo guri Allah ka dhigay dawladdu ay leedahay inta la dhisay dhamaystiray lama sheegin. wax walba waa incomplete. waxa ka daran afarta dhinac faragelin siyaasadeed iyo dal lagu dagaalamayo oo balaayo ay ku dagaalamayso cid masuulka alla aqoon buu noqday. mashaakilaadkii markuu Xasan yimaado dalka taagnaa waxaa ka tira badan kuwa uu hadda ku beeray oo faragelinta shayaha ayaa ka tira badan. waayo waa nin baahan way nin baahana nasab ma aragtidiisu oo dhanba baahi bay ku salaysan tahay maxaa la cunaa. marka waynu arkaynaa marka bal waxa Xasan gacantiisa ka soo haraa sanadkii 4 bilood baynu arki doonaa iyo cidda caanaha ka dhantaynu arki doonaa. aad baan idin salaamayaa meel walba joogtaan isi walba maqlisaanba.